waxaa magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota lagu qabtay kulan aad u ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada beesha Jidwaq ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Shirkan oo ahaa shirkii sanadlaha ahaa ee beesha Jidwaq ayaa waxaa lagu qabtay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo dhalinyarada beesha Jidwaq ee ku dhaqan North America, gaar ahaan gobolka Minnesota. Shirkan ayaa waxaa lagaga hadlay arrimaha muhiimka ah ee horyaala beesha Jidwaq haddii ay yihiin kuwa ku dhaqan dalkii iyo kilinka shanaad, gaar ahaan kilinka shanaad iyo kuwa qurba joogta ahba. Arrimaha lagaga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sidii looga qayb qaadan lahaa dib u dhiska dalka, nabadgelyada, waxbarashada iyo in ay ka faa'iideystaan dadka hadda imanaya wadamada dibadda ah, gaar ahaan wadankan Mareykanka, inay ka faa'iideystaan waqtigooda oo ay ku dadaalaan waxbarashada. sidaas oo kalena waxaa la xusay taariikhda dheer oo ay beesha ay ku leedahay deegaanka kilinka shanaad. waxa ayna ka soo qayb qaateen sida ay xuseen qaar ka mid ah dadkii ka hadlay shirkan nabadeynta deegaankaas iyo gobolka ay maanta caasimadda u tahay kilinka shanaad ee Jigjiga. waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay shirkan hadalladoodii sida tan. shirkan ayuu isugu nimid dadweynaha sharafta halkan isugu yimid suu hore oo qaar uu sheegay mar labaad meeda bixinaya waanuna waxa weeyaan waa shirkii sanadlaha ee mataqaanaa daba socday kii kal hore la qabtay. waa shirkii beesha Jidwaq ay qabsatay kal hore kii uu kana daba socdaa. inta ka bacdi caawa aniga waxa farxadii ah inaan mataqaanaa ka soo qayb galo xafladii labaad ama sanadguuradii labaad ee beesha Jidwaq ku halqabsatay nabadda iyo horumarka ee loogu magacdaray gaar ahaan kulmiye. aad iyo aad bay caawa mataqaanaa aniga ugu faraxsanahay waana mahadsantihiin. intaas ka bacdi beesha Jidwaq waa beel nabadeed, waa beel horumarineed, waa beel jacayl iyo waa beel mataqaanaa muxuu ahaa u dhagan ugu wadatinimada iyo Soomaalinimada iyo Itoobiyaanimada. walaalayaal Jidwaq waa dad Soomaaliyeed, waa dad nabadda jecel weeyaan, waa dad halgamadii ka jiray waddanka Itoobiya kaalin weyn oo laxaadla ka soo qaatay weeyaan. haddii aan ku bilaabo liidarkii weynaa ee magaca islaamnimada ku dagaalamaya Axmed Guray, reerkan isaga ayuu ka dhashay. waxaad ku garanaysaa markaad akhrido kitaabka Fatxul Xabashka inuu sheegayo nin Jidwaq inuu yahay, laakiin Soomaalidu taariikhda way kala xaraan. Soomaali ay dad kale ku sheegaan, laakiin runtii waxay tahay nin Jidwaq inuu ahaa. kale ee soo raacda Jigjiga agteeda waxaa ku taala meel la yidhaha Goldaraawiish. Goldaraawiish waxaa deganay daraawiishtii baa deganay. dagaalo xun baa ka dhacay, ilaa 500 oo ruux ay ka dhinteen iyadoo lala dagaalamayo dowladdii Miili. ciidankaas iyo dadkaas waxaa watay Sheekh Maxamuud Macalin Daraawiish markii laga yimaado halgabna badan buu reerkani soo galay oo waddankaa isagaa ku jeesnaa. haddii la soo qaato 63 ilaa 64 jabhadihii jabhadihii Itoobiya ka bilaabmay, anuu waan u joogay, waan yaraa, laakiin odayaashii waan la socday. jabhadan la yidhaah jabhatu taxriiri Soomaali Qarbi ama Soomaali Galbeed waxaa bixiyey magacaa Jidwaq baa bixiyey. sidiisaba wuxuu u baahan yahay waxa uu u baahan yahay iftiin uu wax ku arko. gurigeena hadda ku jirna nabba inoogu jira. haddaad isweydiiso waxbarashadu maxay kartaa, yaa lagu dheeraadaa, ma lagu gaartaa, ma lagu cayiraa? maya. waxbarashada lagumana dheeraado, lagumana cayiro, lagumana quuraado, fariidna laguma noqdo. laakiin qofka bini aadamkaaba waxay u fududaysaa qaabka u noolaan lahaa. waa iftiinkii nolosha qofka bini aadamkaa ku hagayay. gurigani hadda ku jirno iftiin waxay noo ah halkaas. gurigani yani gudihiisaba iftiinkii noo tiiminaya waxbarashada waa kaas. markaa loo tilmoodo baan leeyahay marka hore
dhammaan mudanayaal iyo marwooyin waad mahadsantihiin sida sharafta leh ee uga soo qayb gateen shirweynaha beesha Jidwaaq ay doonayso inay ku muujiso danaheeda iyo waxay ka hadlayso. marka labaad waxaan idiin qeexayaa xaqiiqda dhabta ah ee shirkan uu ku salaysan yahay. hadda shirkani waa uun barnaamijkii ayaa lagu soo bandhigay iyo siduu u ahaa. shirkani wuxuu ku soo bilowday shirar badan oo ka horreeyay shirkan oo lagu soo gorfeeyey arrimaha saxda oo aan badankooda macnaha laga soo istaagin media iyo microphone. waxaan idiin sheegayaa shirkan beesha Jidwaaq markii ay fadhiisatay shirar badanna ay gashay waxay go'aan ku gaadhay inay aayaheeda ka tashato. waa qodobka koowaad. qodobka labaad waxa weeyaan inay beesha Jidwaaq kula dhaqanto nabad dadka deriska ee macnaha ay deriska yihiin. midda kale beesha Jidwaaq waxay u diraysaa baaq dhammaan ummadda la degan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayna u sheegayso inay tahay beeshii u horseeday nabadan iyo wanaagga lagu joogo. beeshu waxay diyaar u tahay inay xurmayso dadka la degan waxayna ka codsanaysaa sida ay nabadda u jeceshahay ay dadka deriska u xurmayso in iyadana loo xurmeeyo xaqeeda iyo xuquuqdeedana la isaga ilaaliyo. Axmed Laari, Kalson TV, magaalada St. Cloud, gobolka Minnesota.